Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa walaadi nin bay dishaay ilmayso qofkii soo joogsan laga waayo soo jiifsaa laga helaa marta ceelaliyo heshiiso ayaa reer maar cabbaa nabad baa naasal nuuga leh nabadda diidaa waan ku turraantaana mooyaan intay nabadi joogto ayaa nin waliba labana leegay cidla waxa la seexdaa adigaan cidi ku maagayn cuntana waxay macaan tahay adigoo caafimaad qaba sow godobi surinkaad martaba sabab qarsoon maaha sow nabadi sahaydaada ood sidato uun maaha nabad haddaad haysato wax kaa maqani maba jiraan hargeysa 1991 muuqaalkani waa hadhaagii dagaaladii sokeeye ee 10 sannadood socday ee u dhaxeeyay ciidamada qaranka Soomaaliya iyo kuwii ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed hargeysa 2007 caasimad si xawliya u soo kabatay oo ay ku nool yihiin ku dhawaad nus milyan qof waxay caasimadu sumad u tahay soo celinta xiriirka dhaqan-dhaqaaleed ee ka dhaxeeyay bulsho ay dagaaladu aafeeyeen haddaba sidee bay dadka reer Somaliland u awoodeen inay deegaanadooda ku soo celiyaan nabadda iyo xasilloonida sidoo kale sidee bay uga dhex dhisteen qaab dhismeed siyaasadeed oo loo wada dhan yahay duruufaha ilaa heerka cakirnaa filimkani wuxuu dib u eegayaa marxaladihii kala guureed ee colaado iyo dagaalo ilaa xasillooni iyo deganaansho si uu u muujiyo qaababka ay dadka reer Somaliland u suurtageliyeen inay yeeshaan dawlad ay iyagu doorteen bishii April 1981 waxay koox isaaq ah oo isugu jiray indheergarad xirfadley iyo xubno ka tirsanaa ciidamadii qaranku ay ku aasaaseen magaalada London ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ururku wuxuu xarumo ka samaystay dalka Itoobiya laakiin ururku kama uusan helin wax mucaawimo ah oo intaa dheera dalka Itoobiya oo markaa gacanta ku hayay dhaqdhaqaaqii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed ee SSDF sidaa awgeed SNMtu waxay u tanjeersadeen odayaal dhaqameedkii iyo cuqaashii oo ay ka dalbadeen garab iyo taageero odayaashu meesha ay arrimaha ka soo galeen wuxuu ahaa guurtiduna marka ugu horeysa wuxuu ahaa hay'ad ay SNM aasaastay oo hay'ad SNMeeda waxaanu ahaa hay'ad dagaal hay'ad nabadeed mu ahayn bilowgii hore waxaanay SNM ulakas ugu samaysay odayaasha guurtida in ay ka caawiyaan hirgelintii halganka iyo halganka hubaysan ay ka caawiyaan oo ay dadkii ku soo xidhaan iyo deegaanadii beel walba waanu la sheeg beel walba waxaanu nidhi hubkaaga iyo xoolahaaga nool iyo dhallinyaradaadu inay dagaalka galaan raalli makatay haabaa leh od nimankaa jananadaa iyo korneyladaa isu dhiibtaan wixii qorayaa iyo wixii dhallinyaro ah inaan la kala hadhin iyadoo ay ujeedadu ahayd caburin mucaarid dawladdii qaranka Soomaaliya waxay intaa kadib ku soo rogtay cadaadis siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo xoog leh shacabkii ku noolaa gobollada bartamaha iyo kuwa waqooyiga dalka halkaasoo qaar badan u nuglaayeen xabsi bilaa sababa silicdil iyo mararka qaarna dil toogashaa isla bilowgii SNMta waxaa ka dhex aloosmay kooxaysi iyo isriixriix la xidhiidha hoggaanka sare ee ururka SNM way la dhalatay faraqa way la dhalatay kolba heer buu maray SNM kaliya ma aha wax kasta oo bilow aadmigu isku dayo wax kasta oo bilow aadmigu isku dayo khilaaf iyo faraq lagama waayo waa dambe oo uu dhisan yahay dal la yiraahdo Somaliland khilaafyaduna waxay noqdeen kuwo ka dhex abuura jahwareer fara badan ummadda ku nool dalkaas laakiin intii ay ahaayeen jabhad hubaysan oo waddan kale ku nool cadowgoodu mid buu ahaa bartilmaameedkooduna mid buu ahaa sidaa awgeed midnimadoodu waxay ahayd mid daruuri ah
SNM2 iyadoo ah jabhad hubaysan 6 sannadood ayay ciidamadii qaranka kula jirtay dagaal dhuumaalaysi ah laakiin horraantii sanadkii 1988kii ayay Siyaad Barre iyo Mengistu kala saxeexdeen heshiis nabadeed oo ay ujeedadiisu ahayd inuu soo afjaro taageeridii ay labada wadan kala siinayeen jabhadaha hubaysan ee ka soo kala horjeeday sidaa awgeed kadib go'aan ay ku gaadheen inay ciidamadii dawladda ku qaadaan dagaal foolka-foola SNM2 waxay weerareen saldhigyadii waaweynaa ay ciidamadu ku lahaayeen magaalooyinka Hargeysa iyo Burco ciidamada dawladdu waxay miciinsadeen hub culus iyo diyaaradaha duqaynta oo ay ku burburiyeen badiba Hargeysa iyo Burco sababo badan awgood dagaalkii sokeeye ee Soomaaliyeed ma uusan hayn khilaaf nuuciisa hore looga bartay beelaha Soomaalida difference-ka weyn ee intii dambe yimi waxa weeyaan laba mid waxa weeyaan wixii loo compete gareeyay inuu isbedel oo waxay noqotay politics aan tradition hore ugu lahayn dadku aanay u lahayn wax dawlad la yiraahdo state la yiraahdo oo dadku resource u haysto ayaa loo compete gareynaya meeshii berigii hore daaqa iyo xoolaha iyo biyaha loo compete gareynayay midda labaad isbedeshay waxa weeyaan aaladda la isticmaalayo qalabka la isticmaalayo isbedelay oo waran baa markii hore la isticmaalayay imika waaweyn oo akeegu u yar yahay oo meel fog ka dilay ayaa la isticmaalay oo destructive ah sida laga soo xigtay Africa Watch 3 sano gudahood dagaalka waxa ku dhintay 50,000 oo qof oo rayda waxaana ku barakacay ilaa 500 oo kun kuwaas oo badankoodu u qaxay dalka Itoobiya ma ahayn qabiil laakiin waxay awoodii dawladda Soomaaliyeed ay lahayd oo ka hortimid يعني دنيهي أما كنتي دجال كوني نقدر من دولتي يدتك في سمالنا أنا تاس هي كدويسة ما كان حلقة كهاي لبا قبيلة استيلية أما لبا قبيلة محلي لا أما حكومة روسية وكون إيه سجال بقول إيه كوب إيه سجاشنكي SNM2 waxay gobolada waqooyi ka soo afjartay xukunkii militariga ahaa ee Siyaad Barre saadaashu waxay u ekayd mid aan sugnayn beelihii aan SNM-ta ka tirsanayn waxay ka fikirayeen argoosi kaga iman kara xogaga SNM-ta waxa situation aan la sifayn karaynin sida uu ahaa marka xaalad adag bay ahayd xaalad adag oo warwarkeyga leh oo dhibaatadeeda leh oo in la kala argoosto ninba nin ka baqanayo aad u adag bahay oo aad dareemo culus leh yahay taariikhda dadka Soomaaliyeed waa mid ay ka buuxaan colaado iyo isku dhacyo xoog muquunisa iyo kuwa argoosi oo hor leh laakiin wax kasta oo ay colaaduhu ka dhashaan ama in kasta uu khasaarahoodu leeg yahayba geed weyn oo har leh wuxuu mar walba ahaa goob ay odayaashu ku gorfeeyaan khilaafka isla markaana kaga wada xaajoodaan heshiiska kuna barbaariyaan nabadda nasiib wanaag beeshan dhexe markii ay soo shirayeen ay dalka soo geli doonaan waxay ku soo wada hadleen inay haddaynu noqono dalka Ilaahay nabad inagu sii maxaynu yeelanaa beeri naga soo horjeeda maxaynu kala yeelanaa alla nabadno waxa dagaalmo soo sido deedna sidaasay iyagoo formulada wata ay dalka soo galeen waxa weeyaan dagaalkan wuxuu ahaa dagaal soo jiitamay oo marka hore ku bilaabmay conflict oo dawlad iyo shicibkeegii dabeedna inta uu socday waxa dhismayay qaabo badan iyo structures baa dhismayay waa inuu ku sheegay dumarka kaalin odayaashii dadkii dagaalamayay marka runtii bulshada qaybo badan oo wax ka qaban karta nabadda ayuu bisleeyay dagaalkaas waayo maadaama uu muddo dheer socday waxa ka dhex abuurmay inay dadku isqaabeeyaan ugu dambeyntii ku tiirsanaantii SNM-ta ee oday dhaqameedka si ay u hirgeliso halgankeeda waxay ka caawisay ururka inuu noqdo mid xil iska saara mas'uuliyadda shacbi weynaha SNM-tu waxay awoodda qabsatay xilli ay noqotay dhaqdhaqaaq bisil waxaanan anigu filayaa inay ahayd fahamka firfircoon ee siyaasadeed iyo xidhiidhadii isla dagaalka gudihiisa lala sameeyey qabaa'ilada kale inay abuurtay micno ah in SNM-tu ay wax xukumi karto iyo inaanay waxba hogaamin karin haddii aanay xidhiidh wada tashi la samayn
qabaa'ilada kale ee ku nool gobollada waqooyi. laga bilaabo oog ilaa iyo kulankii ahmiyadda weynaa ee berbera ee sanamtu waxay qaaday tallaabooyin xidhiidhsan oo ay ku soo afjarayso colaadihii ka taagnaa gobollada waqooyi. kulamadan waxay u dhexeeyeen odayaashii iyo waxgaradkii beelaha isaaq, harti, gadabuursi iyo ciise. shirkii berbera ee walaalaynta beelaha waqooyi wuxuu ahaa mid ay si weyn sanamtu u abaabushay. waxay ahayd halkani meeshii ugu horreysay oo ay wufuud ka kala socota beelaha waqooyi isugu wada yimaadeen. sidaa awgeed waxay halkan wufuuddu ku wada qaateen go'aan xabad joojineed oo ku wada baahsan gobollada waqooyi. intaa kadib laga bilaabo bishii abril ee 1991 dhammaan qabaa'ilada waqooyi waxay ku kulmeen burco iyadoo ay ujeeddadu tahay in la xoojiyo nabadda iyo in laga wada xaajoodo mustaqbalka siyaasadeed ee gobollada waqooyi. wadaxaajoodkan wuxuu ku salaysnaa ka qayb qaadashada dhammaan beelaha ku nool gobolladaasi. waa halkii lagu qabtay shirkii ugu horreeyey ee Somaliland markii uu dhammaaday shirbeeleedkii ay isugu yimaadeen beelaha reer Somaliland. waxaa la isla gartay shir aaya ka tashi ah in Somaliland lagu qabto. shirkii dabadeedna burca lagu qabtay. shirka markaa qaybtiisii hore waxa ay ahayd waxgaradkii, siyaasiyiintii, garaadadii, salaadiintii beelaha reer Somaliland oo dhan ee 6 gobol degan in ay isugu yimaadaan oo ay arrinkaa ka shiraan. arrinkaa markii ay iyagu ka shireen wixii tala soo jeedin iyo qaraaro ay ka soo saareen resolutions waxaa lagu soo wareejiyey inuu sharciyeeyo oo uu dib u eego ururkii SNM maxaan ku yiraahdaa hay-adiisii sharci dejinta ee la oran jiray golaha dhexe. shirkii burco goob ahaan micno weyn ayuu lahaa, waayo waxaan filayaa inay burco ahayd meesha ugu wanaagsan ee xagga bariga inaga xigta. inkastoo ay Hargeysa ahayd meel wada burbursan oo miina ka buuxdo, haddana burco waxay ahayd meel suurto gelisay in qabaa'ilada bari ay ka qayb qaataan shirka. tani waxay ahayd mid ahmiyad gaara leh, waayo jabkii ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ma uusan ahayn mid soo afjaray colaadihii ka jiray gobolka Sanaag. colaadii gobolkan ka taagnayd waxay ahayd mid ka duwan kana sii cakiran colaadihii ka jiray waqooyiga intiisa kale, iyadoo ay sabab tahay kala duwanaanshaha qotada dheer ee beelaha dega gobolkan. gobolka Sanaag wuxuu ahaa marka hore dalka gudihiisa, frontline dalka gudihiisa buu ahaa. isla markaa gobolka waxaa dega beelo kala duwan oo isaaqi daarooda oo iyaguna usii kala baxaa clans kale. degaan muddo dheer ahaa, dad wada noolaa bay ahaayeen, sanado qarniyo wada noolaa, laakiin dagaalkii ayay laba kooxood kala raaceen. labada kooxood kala raaceen ee dowladdii Siyaad Barre iyo ururkii SNM ka soo horjeeday ahaa. gobolka Sanaag runtii wuxuu leeyahay characteristic gaar ah oo yani ninka yaqaana mararka qaarna waa ka cadaawadana waa uga nugulyahay, nabadgelyadana waa uga nugulyahay. waana ummad bacduha min bacd isdhashay, wada dhalatay, yani si walba isugu xidhan, gabdha kala qabta. haddii allaba kuu rooyahay cadaawadda ka dhacdaana way ka fool xumaanaysaa ta gobollada kale ka dhaca. sidaa awgeed in markiiba laga gudbo colaadda ma aysan ahayn mid ka suurto gashay Sanaag. ilaa in muddo ahna tani waxay khatar ku ahayd geedi socodkii nabadaynta Somaliland. iyadoo ay beelihii hartiyeed ku guda jiraan shirkii burco, weerar ayaa ku socday tuulooyin ku yaalla bariga fog ee Sanaag. arrintani waxay sii xaqiijisay xaaladda cakiran ee ka taagnayd Sanaag, waxaanay ku kaliftay odayaashii iyo hoggaankii SNM-ta in mudnaan gaara la siiyo arrinka Sanaag gudaha shirkii burco. 18 May 1991 dhammaan qabaa'ilada gobollada waqooyi waxay ku heshiiyeen kuna dhawaaqeen la soo noqoshada jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland. SNM aan ku wada soconba in la soo celiyo madax bannaanida Somaliland waxay ahayd arrin xoogaystay oo dhashay. dad SNM oo qabay way jireen, way jireen, laakiin toosna loogama hadli jirin, la iskuma mashquulin jirin. intii halkan socday wuxuu arrinkaasi soo shaacbay, wuxuu xoogaystay, uu xoog noqday markii dalka la soo waxa xoojiyey
waayo araggii dadku ay u lahaayeen ciidamadii koonfurta u badnaa ay waqooyi ka dagaalamayay markaan run ka sheegayo matalan yani ummaddii jamaahiirta halkaa isugu timid haddii aan sidaa lagu dhawaaqeen dhibaata dhici lahay oo kama dhacdeen beelaha la sheegayo oo darafka kama dhacdeen waxay ka dhici lahayd aslamta gudaheeda wixii taariikhihi waa in sideeda muxuu ahaa loo sheegaa berbere ka soo baxeen ciidamo kolkaasay dabeetana meeshii dadkii magaalada soo raacay meeshii lagu shirayay bay yimaadeen waxay dhahaan ku dhawaaqa go-aankii muxuu ahaa somaliland laakiin wax diidan oo kolkaa lahaa ma doonayno ma garanayo oo aan individuals aan saddexba ka badnayn dee wixii niyadooda qofka wax ugu qarsoonaaye ma sheegin halkaa waxaa la isla gartay in dib loo soo nooleeyo somaliland jiritaankeedii madax banaanadeeda la raajo in nabadgelyo lagu wada noolaado in institutionska hay-adda ay ka kooban tahay haykalada ay ka kooban tahay qaranka in lagaga wada mid noqdo marka waktigaa haykale kale ma dhisnayna waxaa dhisnaa asana baa dalka haysay xukunkeeda haysay marka beelihii hareeraha aan ku jirin waxaa lagu soo daray golihii dhexe asana baa lagu soo daray guddidii fulintaa lagu soo daray guurtidii baa lagu soo daray waa taa ilaa imaka ay dhisatay ku jiraan ku dhawaaqidii kadib waxaa halkaa lagu dhisay dowlad uu madaxweyne ka noqday cabdiraxmaan axmed cali xasan ciise jaamacna uu ka noqday madaxweyne ku-xigeenkiisii ku dhawaaqidii madax bannaanida waxay dalka gudihiisa ka dhalisay ka soorayn dababilowgii dhoofka xoolaha wuxuu soo kordhiyey koboc dhaqaaleed la soo noqoshada qarannimada iyo farqiga muuqday ee u dhexeeyey koonfur iyo waqooyi waxay suurtageliyeen xasiloonni cusub balse xasiloonnidan ma aysan noqon mid waartay dadkan soo galay ama qaxoonti ha noqdo ama jabhad ha noqdo wuxuu u baahan yahay community absorb gareeya oo receiving community la yidhaha dee bulsho ay la noolaadaan oo aqbashadee qaadata dee iyaa qaxooti miyuu qaadaan meel walba waxaa tubnaa dagaalyahano hubaysan oo kala filiqsan raynrayntii ka dhalatay xoraynta dalka ayaa si aayara u soo yaraatay niyad samidii dadka oo dhanna waxaa cadaadis ku bilaabay wadcigii iyo khasaare burburka soo shaacbaxayay jabada gobolnimo doonka muddo intan ka badan bay badanka qaataa hadday ka soo qaadato unitariga oo kale taayadu waxay ka ahayd nooc gooniya haddaad eegto dhinacna dee way la wadaagaysaa dabcan waxyaabaha qaarkood waxaan odhan karaa waxyaabihii ay ahayd halkaa in lagu soo dhammaysto iyo muddada nagu yar awgeed waxyaabaha qaarkood lala soo galay loolankii awoodeed ee soo jireenka ahaa ee u dhexeeyey qaybaha kala duwan ee asnamta ayaa helay fursad uu ku qarxo ilaaqtamid ayaa bilaabantay si deg deg ahna u korodhay kadibna isu rogtay colaad xooggan oo dagaal gaadhay wuxuu ku horreeyey burco kadibna berbera xaaladda runta ah ee meesha taallay dowladda ugu wanaagsani tii cabdiraxmaan tuur iska daayo kabay dabaalateen waxaa kala mug weynaaday awooddii maamul ee dowladdaasi ay lahayd way kala mug weynaatay haba kala mug weynaadana hadday united aanu ahaan lahayd ama esrab ay united ahaan lahayd wuxuu ereyadii cabdiraxmaan tuur ka mida waad gaabinaysaa beri lagu yidhi cabdiraxmaan tuur dowladdaadu waa mid gaabisa oo waa gaabinaysaa wuxuu yidhi gaabinta dan baanu moodno waxaanu isnay haddaad dheerasan wayda kufi nabadaynta qaybaha dagaalamayay ee asnamta dhexdeeda iyo dowladda iyo mucaaridkeeda way cakirnayd laakiin maadaamay colaaddu ahayd mid u dhexaysay beelaha isaaqa dhexdhexaadinta beelaha aan isaaqa ahayn ayaa noqotay mid daruuri ah arrintanna waxay xoojisay dareenkii qarannimada ee beelaha somalilan inkastoo ay labada colaadoodba salka ku hayeen faraqa iyo kala fogaanshaha qaybaha asnamta haddana berbere waxaa ka soo shaacbaxaysay loolan xooggan oo ku salaysnaa maamulka hantida guud iyo ilaha dakhliga dowladdu waxay u muuqatay mid aan awoodin inay xadido xiisaddan sii kacaysay bililiqada dilka iyo rabshadaha ayaa noqday
kuwa ku baahsan dalka oo dhan. baahida ugu weyn waxay dawlad law and order baahida ugu weyn waxay in la dhiso dawlad ilaalisa oo gacanta ku qabata sharciga iyo xadgudubyada ka dhacayay dariiqyada iyo magaalooyinka oo niman dayda lagu magacaabay oo helay qoryo oo aan ujeedo kale lahayn inay dadka boobaan mooyaane ayaa dariiqyadiina looga cagay magaalooyinkiina looga cagay. xal la'aanta awgeed waxaa la isku raacay in la gaaray baahidii ugu weynayd ee ahayd in odayaashu dhexdhexaadiyaan qaybaha awoodda isku hayay iyo dawladda iyo mucaaridkeeda. dee waa beel soo dagaalantay iyada beesha dhexdeedii dabadda ka timi ayaa qardabadu ka dhacday labadii baallaa kama dhicin qardabadiibaa baarlamankii la dhisay iyo wasaaradii cabdiraxmaan axmed cali la wadi kari waayey cabdiraxmaan axmed cali baa odayaasheedii loo yeedhay oo sheekh ibraahim u jeermaanyi oo beeluu ku dhan yihin tii sayid gobolka saylac iyo tii laascaanood iyo tii ceerigaabo aan qorana ka maqnay wuxuu yidhi iga qabto taladii idinku la wareega baarlamankana ii soo fadhiisan waa wasaaradiina ma hayo ka taliya waa ka degaya ha ka degin baanu waa kula haynaynaa. iyagoo awood loo siiyey kana faa'iidaystay deganaansho muddo ku koobnayd odayaashu waxay bilaabeen dadaal ay ku hirgelinayaan kulamo taxana ahaa oo lagu soo afjaray shirkii sheekh ee tawfiiq. wixii ay sahayay waxay noqdeen dadkii isaaqa ahaa kolkaa dabeeto nimaan isaaq ahayn baa kalsoonidii helaya oo kolka qoladanna maaha isagu horta dhexdhexaadintoodu say ku hirgashay ilaahay khayr ha siiye hawl wanaagsanna way qabteen waxay ahayd dhexdhexaada ay yihiin ayaa muxuu ahaa ayaa suurtagelisay. isla waqtiga beelihii sanaag waxay ku guda jireen shirar hooseedyo istaba joog ahaa sababtoo ahayd taariikhdii adkayd ee soo dhex martay beelaha waxay isku afkarteen inay u kulmaan laba reer halkaasoo ay ku xalliyaan khilaafaadka iyo wixii aanooyin ahaa ee u dhexeeyey labadii beeloodba. ta aasaaska u ahayd markaa nabadgelyada iyo shirka miladhalkiisaba waxa weeye iyada oo muddada 2 sannadood ahayd 19 ilaa 93 intaa la soo lafigurayay oo laba reer oo waliba laba jirib oo waliba wixii ay kala tabanayeen wixii intaa la soo daweynayay oo intaa shirarkaa hore lagu soo lafigurayay. kaalinta haweenku qayb lixaad leh ayay ka qaadatay geedi socodkii nabadda iyo qaran dhisidda Somaliland. sanaag haweenku colaadu markay dhacday waxay sameyn jireen dadka waxay u kala qaadi jireen wararka ah nabadda oo kale in geedaa la wada daaqo oo la isku soo duulin in biyaa la wada cabo markii dagaalku soconayay yani xaqiiqdii kaalin aad u weyn waxa qaatay haweenka labada reer oo kala yare durugsan midna ka dhalatay midna u dhaxday oo de reerna reerkoodii buu ahayo way ka dhalatay reerna reerkoodii buu ahayo way u dhaxday marka dumarka fariinta kala qaadana iyagay ahaayeen ilaa la isu soo galay oo maxay ahayd la isu yimi haweenku baa de warka telefoon la isu dirana ma jirin taar la isu dirana ma jirin haweenku baa warka kala qaadi jiray oo iyagu baa de dhanbaa lahaa. horta waa ta koowaad dumarku had iyo jeer waa kuwa nabadda jecel iyagu marnaba aan jeclayn in dagaal dhaco haddii se ay dhacdo oo dagaalku dhaco waa dadka ugu faraha badan ee ay dagaalku saameeyo iyagu dumarku sidoodaba de qabiil male gabadhu reer bay ka dhalataa haddana waxa guursada reer kale marka labadii reer hadday islaayaan waxa iska hor imanaya ninkeedii iyo aabaheed walaalkeed inankeedii kay eedada u ahayd adigu dee labadii family midna ka dhalatay midna u dhaxday iska hor imanaya deedna iyadu dee dhan walba dee waa ta u jabaysa ee dhankana inankeedu ku dhimanaya dhankan walaalkeed ku dhimanayo. laakiin shirkii tawfiiq ee magaalada sheekh ayaa ahaa shirkii ay haweenku doorkoodii ugu firfircoonaa ka muujiyeen. shirkan wuxuu ahaa mid ay haweenku markii ugu horreysay si muuqata u hantaan saamiga codkooda.
waxay ula muuqatay dadka dadweynaha inuu dheeraaday dabeedna si ay taa loo soo afjaro ayay dumarku waxay soo abaabuleen qoraallina way soo diyaariyeen waxaanay soo abaabuleen mudaharaad ay hortaageen meesha iyadeen maanta haddaan la saxiixin ma ka dhaqaaqayno meesha alxamdulilah hayaantaa waana loo ogolaaday inay gudaha fadhiistaan inay dhegaystaan inay warqadoodii dhiibtaan inay saxeexii la saxiixayey diyaar u ahadaanay u taagnaadaan inaanu qaadanay xabad joojin iyo nabad buraa yaa wallaahi horta wuxuu way kala horreeyeen oo waqtina wuxuu bilow bay ahaayeen wax cusub u ahaa waqtina waxay ahayd waqtigii dadku isu soo galay oo muddo la wada joogay oo wax la wada cunay oo la wada seexday marka shirka sheekho kale wuxuu ahaa waqtiyo yani xaqiiqdii la soo yara dhex galay inkastana anigu ka qayb qaadan laakiin haweenku door bay ku lahaayeen sida sheekada ku hayo way ka qayb qaateen xagga waxqabadka iyo shaqada iyo dhaqaalaha iyo maxay ahayd dhamaana way ka qayb qaateen si fiican bay uga qayb qaateen aakhirkii shirkii tawfiiq wuxuu si wanaagsan u suurtageliyey in colaadihii burco iyo berbere la soo afjaro laakiin xasiloonidii heer qaraneed waxay ahayd mid weli aad u tamar daran waxay odayaashii halkaa joogay isla garteen waxaani burcu ka dhacay haddana barbaru ka dhacay muddo yarbaa kolba u dhaxaysa waxaani inaanu inaga joogsanaynin haddii aynaan dhisanin nidaam adag oo beelaha lagu kontaroolo haddii aynaan dhisan waxaanu garannay shir degdega in la qabto maadaama qoladii snmna madaxdeedii 2 sannadood iyadana bilo yar ay ka hadhay in sheekh lagu go'aamiyo mu'tamar weyn oo ballaadhan in la qabto si arrinkan loo hirgeliyo ergooyin tiradoodu gaadhayso ilaa 500 oo qof ayaa isugu yimi Boorame iyagoo marti u ahaa reer Awdal waxay odayadii halkii joogay u arkeen meesha kaliya ee beesheedii isku duuban tahay ee shir uu ku qabsoomi karaay inay tahay degmada Boorama gobolka Awdal inay tahay waan soo dhaweyn arrintii oo waxaanu nidhi annagu guul bay noo tahay oo sharaf bay noo tahay ummadda Soomaaliland intay doontaba halleekaatee intay ku timaadaba dad u jilbi dhigi kara ayaanu nahay martigelintooda gogol u dhigooda dadka iyaguna diyaar buu yahay annaguna ummad qaadi karta ayaanu shirkii Boorame wuxuu ku salaysnaa habbeeleed ujeedadiisuna waxay ahayd in lagu xalliyo arrimo muhiim ah oo ay ugu weyneyd ayo ka tashiga mustaqbalka Soomaaliland halkani waa halkii shirka Boorama lagu qabtay howlkan 1993 shirkii intaag la yiri Soomaaliland halka lagu sameeyay as a state waxaa jiray doodo fara badan oo la xidhiidhay micnaha uu xambaarsanaa mustaqbalkani laakiin ugu dambeyntii waxaa lagu wada heshiiyey in la samaysto ahdi nabadeed ka hor intaanay doodda u gudbin qaababka ugu habboon ee dhisidda ahdi qarameed dhowr qaab oo la xidhiidha nidaam dawladeedka ayay soo bandhigeen ka qaybgalayaasha shirku wadaxaajoodkuna wuxuu ahaa mid aad u kulul 15 casho isla maqnaayo waxay yidhaaheen saddex baanu soo kala noqdeen qolo waxay soo dhistay kolkan kuu soo dhoweeyo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen qolona waxay soo dhistay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare qolona waxay soo dhistay 5 nin oo guddoomiye oo madaxweyne 5 nin oo shantaa nin maxay noqonayaan baanu nidhi ninba bil buu haynay waxaanu nidhi isku noqda ayaanteeda isku noqda isniinteeda la kaalaya ismari waa dheer kadib waxay wadaxaajood iyo loolan siyaasadeed suurtageliyeen in lagu heshiiyo nidaam ka kooban madaxweyne awood badan oo leh gole wasiiro ah iyo baarlamaan heshiiskan wuxuu u gogol xaadhay doorasho taariikhi ah oo lagu doortay madaxweyne maxamed ibraahim cigaal iyo madaxweyne ku-xigeenkiisii cabdiraxmaan oo cali faarax waxaa kaloo la isla meel dhigay dhisidda baarlamaan ka kooban 2 qaybood oo golo hoose iyo mid saraba leh isla xilliga geedi socodkii nabadaynta beelaha Sanaag ayaa soo gabagaboobay kadib 2 sannadood oo ay socdeen shirar taxane ahaa
beelihii isaaq iyo kuwii harti waxay isugu yimaadeen ceerigaabo boorame markii la isugu wada yimi beelaha somalilan adoona isugu wada yimaadeen boorame ee lagu dooranayay madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo xadi qarameedka lagu qoray waxaa jaanis isu helay inay is arkaan beelihii sanaad ayay is helay dabeedna meeshii oo madal weyna ayay isku arkeen dabeedna waxay ballameen in ceerigaabo shir lagu qabto halkan ayay ahayd meeshii ugu dambayntii si ballaadhan lagu soo afjaray colaadihii waxaa kaloo halkan la isla gartay in wixii hanti ah ee la kala qaatay laysu soo celiyo sidoo kale waxay beeluhu halkan ku samaysteen shuruuc saldhig u ah ku wada noolaanshaha deegaanadaasi shuruucdaasoo ay ku muujiyeen axdi goboleed heshiisyadan waxay horseedeen soo celintii xasiloonnidii iyo xidhiidhkii dhaqandhaqaale ee u dhexeeyey beelaha ku wada nool gobolka ugu dambayntii shirkii boorame wuxuu noqday taariikh aad u xusid mudan oo qayb lixaadle kaga jirta geedi socodkii nabadayntii iyo dubudhiskii somalilan waxaa ka soo baxay heshiis nabadgelyo oo khuseeyey beelihii marka wixii ugu weynaa ka soo baxay wuxuu ahaa dowladnimadaa la dhisay golihii wakiiladoo la doortay golihii guurtidoo la doortay axdi qarameedkaas iyo heshiiska nabadgelyada ee dhex yaallay beelaha axdi nabadeedkii lagu kala seexday shirkii boorame wuxuu lahaa soocnaan la xidhiidha turxaan bixinta qadiyadda ilaalinta nabadda habkan lagu wajahay ilaalinta nabaddu waxay si qayaxan uga duwanayd hababkii shirarkii hore ay u waajaheen qadiyaddan in la kala saaro nabadda iyo qaab dhismeedka siyaasadda dalka waxay ku dhalisay inay beelihii somalilan iyagu qaadaan mas-uuliyadda ilaalinta nabadda deegaanadooda balse ugu dambayntii dhaxalkii shirka ee axdi nabadeedka iyo axdi qarameedka waxay u suurtageliyeen maamulkii cusba inuu bilaabo waajibaadkii ahmiyadda weynaa ee hubka dhigista maleeshiyooyinka beelaha taasina waxay guul weyn u ahayd dubudhiska somalilan mar haddii la aqbalo dowlad dadkuna ay siiyaan waxa weeyaan islaamka waxa la yidhaha mubaayacadan lagu sheegayaana berigii hore waxay gacantoo la salaamo laakiin marka mubaayacadeena waxay noqotay in ay beelihii hubkii ay haysteen u dhiibaan dowladda taasna waxay caddaysay in mubaayacadii marka halka habkaa u dhacday ay keentay inay dowladdii noqoto dowlad acceptable ah oo cid walbaaba ay dhasho maxamed ibraahim cigaal wuxuu markiiba dhisay xukuumad inkastoo uu helay taageero ballaadhan haddana xukuumaddiisii waxaa markiiba ka hor yimi caqabado tiro badan oo aan u suurtogelin in la dhiso haykalo dowladeed oo xooggan inkastoo ay qaadatay 9 sannadood oo dambe inay doorashooyin ka dhacaan dalka haddana waxay dad badan oo reer somalilan u arkaan shirarkii burco sanaag iyo boorame inay ahaayeen marxalado aasaasi u ah taariikhda dalkan shirka burco labadii qodob ee laga lahaa labadaba 100% baa lagu guuleystay guul xaraga ah oo gobonimo ah ayuu ku dhamaaday sababtoo ah waxay ahayd in la issaamaxo oo la heshiiyo oo ay saamaxaan beerihii SNM taageersanaa ay SNM iyo maamulkeedii iyo beerihii dee ka soo horjeeday dowladda wax dambe oo ka dhacay xaggaasna ma jiro oo dhibaato nabadda sanaad waxay important u ahayd waxay ahayd fourth lines baa la yidhaahda waa meelaha beelaha soomaalidu ay isaga timaado ee kala abtirsiintan soomaalida ku kala duwan ayay isaga yimaadaa oo wada degaan gobolka taasu markaa waxay noqotay haddii taa lagu duulaysto waa lagu duulaysan karayaa nabadda kalena marka priority waxa loo siinaya mudnaanta koowaad waxay ahayd meel qabaa'il iyo beelo kala jaadi ay degan yihiin sidaas ayay ahayd oo la yidhi in lagu soo afjaro inay colaadi ka sii ballaarato halkaa oo ay meel kala waaweyn gaadho sirtu dadweynaheena iyagaa raalli ka ahaa inay dowladii u samaysanto dadweynaheena raalli ka ahaa inamadoodu inay qoryaha dhiibaan dadweynaha raalli ka ahaa in inamadooda la qarameeyo oo aanay qolana hub gooni ah haysan
dadweynaheennaa xiise u qabay nidaam xaga oo duwaliyeyna yeesha haddii soomaalida laysaga tago xal bay helayaan haddii soomaalida aanay cidina waxba ku darsan oo faraha laga qaado soomaalidu xal bay gaadhaysaa wayna gaadhay somaliland baa laga artayna gaadhay leadershipka ka qaybgelaya shirarka shir nabadeedyadan inay noqdaan dad dadka matala oo dadku aaminsan yihiin oo ku kalsoon yihiin ta labaad inaan outside agenda meesha soo gelin oo aan interferenceka outside ka imanaya oo agenda aan dadkan dan u ahayn aan meesha soo gelin ee dadku iyagu ay define kareeyaan waxa ay ka rabaan nabadeyntan waxa kale oo jirtay oo fursad weyn iyaduna ahayd lama ilaa waana ahayd oo haddii aanay dhicin marnaba somalilan waxba ayna ka hagaageen madaxdii SNM ee wakhtigaasi joogtay odayada sheekh markii aanu joognay waxaanu go'aaminay shirka boorama lagu qabanaayo inaanay ka qayb gelin madaxda hubka sidaayay inaanay ka qayb gelin ragga dawladnimada u diyaarkaa ee ama wasiirnimo doonaya ama wasiir ku-xigeenimo doonaya ama mansab dawli ah ragga doonayaana inaanay shirka inagala qayb gelin waayo ninka qoriga sitaaya haddii uu shirka odayga kala qayb galo wax alla wax u hagaagayaa ma jiro sidaynu sheegayna ummaddu waa inay lahaato dhaqan ay ku talagasho inay isdhegaysato oo ciddii dulmi tirsanaysa waa inay helaan wax dhegaysta iyo farsamo muxuu ahay dee dacwadooda iyo lagu dhegaysan karo dareenkooda waa in weel meel lagu kala baxaa ay jirtaa qaar badan oo ka mid ah ka qaybgalayaashii shirkii boorame waxay xusuustaan in markii ay joogeen magaalada aanay hawsha ku koobnayn oo qura in la shiro laakiin mar walba oo ay ka baxaan shirka oo ay magaalada u shaah doontaan ay kala kulmayeen soo dhoweyn wanaagsan reer boorame oo halkaa iswaraysi iyo kaftan uu dhex marayey bulshada magaalada ayay la noolaayeen oy wax la cunayeen oy dhex seexanayeen tani waxay suurto gelisay inay daweyso xiisaddii u dhexaysay beelaha isaaqa iyo gadabiirsiga oo dagaalku sababay waxaa muuqatay in si dhabaa nabadda loogu abuuro iyadoo ay sabab u tahay isdhexgalka heerkaa lahaa anagu waxaan idhaahnaa nabaddu waa ilmo yar cunug yar oo dhashay wey cunuga yarna qofku mar qofka yar waxa weeye waa yaallaa wuu soo dhashaa dhulku yaallaa mar hooyadaa soo yar qaado oo xaggay ku qabataa mar kadib way qaadaa way gardaadisaa dhabarkay saartaa kadib gurguurad buu yar bilaabaa maxaa dhacay inuu istaag sameeyo markaa waxaan idhahnaa markaa nabaddu waa ilmo yar oo la rabaynoo marna soo dhalanaya marna soo dhasho dhulka yaalla marna dhabarka lagu gardaadiso marna kacatiinkii bay nabaddu ku jirtaa baan leh